madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi iyo wafdiga uu hogaaminayo caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland dib ugu soo laabtay ayaa hal habeen u eeday magaalada Gabiley. madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu waxay kormeer xogogaal noqosho ku tageen magaalada Allaybaday. madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayay intii aanay gaadhin degmada Allaybaday waxa uu madaxweynuhu dhagax dhigay wada ballaaran oo isku xiri doonta magaalooyinka Hargeysa iyo Allaybaday, waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka heer gobolka degmo magaaladaasi. kuwaasoo luulaya calanka Soomaaliland caleemo qoyan iyo waliba halkudhigyo ay ku maamuusayeen madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi soo dhaweyntaasi kadib waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyay wafdiga uu hogaaminayay, waxaana munaasabadaasi ka hadlay salaadiin waxgarad aqoon-yahano iyo waliba gudoomiyaha degmada Allaybaday. intaasi kadib barasaabka gobolka Gabiley ayaa la hadlay wafdiga madaxweynaha iyo waliba shacabka ku dhaqan degmada Allaybaday. wasiirada wasaaradaha beeraha iyo madaxtooyada oo iyaguna xafladaasi madaxweynaha loo sameeyay ka hadlay ayaa ku dheeraaday waxqabadka xukuumadda, waxaanay halkaasi ka ballan qaadeen in wasaaradahoodu ay xafiisyo kala duwan ka furan doonaan magaalada Allaybaday. gabagabadii madaxweynaha Soomaaliland ayaa halkaasi kula hadlay shacabka Allaybaday. dadweynaha faraha badan ee reer Allaybaday ee halka isugu yimid ee la soo dhaweeyay aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa. anigay waftiga ila socdaaba sida qarab sharafta iyo qiimaha aad soo dhaweyseen sida caadadeedina ahayd ee aad weligiin yeeli jirteen. waxaan idinka ballan qaadayaa haddii aan dawladda nahay waanu dhagaysanay cabashooyinkii halka laga soo jeediyey, waanu dhagaysanay, waanu ognahay, waanu la soconnaa baahiyaha uu dalku qabo, uu gobolkana qabo, uu degaankana qabo, waanu la soconnaa, waynu ognahay. oo marka hore waxaanu dad koraya baynu nahay, dawlad soo koraysa baynu nahay. dalkeennu waa dal maalin walba wuxuu soo kordhayaan, waa dal baahidiisu meel walba ay taallo. dawladdu waxa soo gala iyo waxay qaban kartaa maaha wax markuna wada gaari karaya, laakiin waa wax shacbiga iyo dawladda iskaashaday ay mar walba meeshii ay doonayaan ay insha Allah gaari doonaan. halka ka waxaan ku ogahay dadaal fara badan, taariikhda halka ku lahaa, taariikhda uu leeyahay, wax qabashada iyo dadaalka iyo mid walba uu ka muujiyo uu hadiyo goor u muujiyo dadkiisa shacbigiisa. waxaanu diyaar u nahay haddii aanu dawladda nahay cabashooyinka halka laga soo jeediyey iyo waxyaabaha loo tilmaamay mid walba inaanu doorkayaga ka qaadano ayaanu diyaar u nahay. madaxweynaha Soomaaliland intii aanu ka soo jarmaadin magaalada Allaybaday waxaa hadhima sharafeed lagu sameeyay magaaladaasi, gaar ahaanna harta loo yar. intaasi kadib wafdiga hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland waxay u boqoleen magaalada Togwajale, waxaana si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Togwajale oo luxayay caleemo qoyan calanka Soomaaliland iyo waliba halkudhigyo ay ku maamuseen madaxweynaha Soomaaliland. wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi ee loogu sameeyay magaalada Togwajale ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Togwajale salaadiin waxgarad iyo waliba aqoon-yahano, waxaanay ka warameen waxqabadka la taaban karo ee ay ku talaabsatay xukuumadda hogaaminaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi, waxaanay madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyeen inuu wax kala qabto adeegyada bulshada, gaar ahaan dhinacyada caafimaadka, wadooyinka iyo waliba dhinaca biyaha. munaasabadaasi ayaa iyaguna waxaa ka hadlay wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo madaxtooyada, waxaanay uga mahadnaqeen shacabka ku dhaqan magaalada Togwajale soo dhaweynta qiimaha leh u sameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. reer garoon, reer laanta cuntinka, waad mahadsantihiin. aniga runtii hadal badan ee halkan maanta igama fog. aad baa u mahadsantihiin walaalayaal. haddii ay ahayd bulshada reer Wajaalati number 1 ka keentay, waxqabadkana number 1 ka geli doontaan insha Allah taala. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday
mustaqbalka ay yegsanayso xukuumadda uu hogaaminayo waxaana uu sheegay in xukuumaddiisu haba yaraatee aanay waxba kala hadhi doonin guud ahaanba dadka ku dhaqan magaalada Togwajaale waxaana uu halkaasi uga ballan qaaday in wixii karaankiisa uu wax kala qaban doono. maanta tiibaada ka muuqata waa idinka mahadcelinaya waxaan idinka ballan qaadaynaa marka aanu nimaadno waxyaabo badan baanu ballan qaadnaa goobtii baahida dalkeenna taallaa aad iyo aad u fara badan tahay dalku minbar ilaa galbeed hadday wadooyin tahay hadday caafimaad tahay hadday iskuulle tahay hadday biyo tahay mid walba wuu baahan yahay kulli markuna lama wada gaadhsiin karo meel walba se waxaanu ka qabannay wax fara badan baanu ilaa imika ka qabannay inta soo socotana insha allahu tacaala sanadba sanadku ka dambeeyo wixii hore wax ka badan baanu isu gudbi doonaa gobollada oo dhan dalka oo dhan insha allahu tacaala. deeq axmed aar cawl cabdi kaahin iyo axmed saki daahir xasan telefishinka qaranka Somaliland magaalada